إنا لله وإنا إليه راجعون وحوي هرت dad oo dhan waa dhimanayaan laakiin geeridani geeri aad iyo aad u xun naxdin badan oo si xun oo fool xun u dhacday weeye uu dhimanayay laakiin sida uu ku dhintay ayaa si la yaab leh ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii janno dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan iyo qaraabadii uu ka tegay gaar ahaan iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan tacsi tiraan layo marinaya idaacadda qaranka oo aan isleeyahay wadawaynu wada dhimanayna laakiin ninkaasi waa inaga baxay wuxuu ahaa nin aad u dadaal badan shaqadiisa aad ugu dadaala aan wadaniyadiisu ay fiican tahay oo dadka Soomaaliyeed u naxariisanayay oo aan ahayn qof macangaga oo xun ayuu ahaa oo dadkiisa iyo dalkiisa dareenkeeda leh hadda waxa weeye arrinta dhacdayna waa arrin aad iyo aad naxdin u leh oo fool xun waxaan ka digaynaa in ayna yacni meesha uu ku dhintay waa meeshii ugu adkayd amni kolka la yidhaahdo oo aada u adkayd haddana shadaadiintu meelay ka soo galeenba soo gala si ay usoo galeen nama garanayo oo ay arrintaasi u dhacdo kolka waxaan leeyahay tacsiimaan diraya anigoo ku hadlaya magaca aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo kaygaba guud ahaana dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeedba waxaan dirayaa tacsida isagana ilaahay jannadii fardowsa geeyo